السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. يعني إن شاء الله وران بدنين بين كورندون هدي ربي حكمه موضوع الربا أي عموما وحنفل يعني لقى هذلي الكسب الحلال أما حكسي حلاشة وحلقات المامي يعني مركز إنه الربا كورنه في الشريعة إلهي سبحانه وتعالى حكم عدبو كدتشيي ومسلمين تسكوا فخصنتها أصليا إن الربا حرام تهي وقرآن كسوا أروري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كسوا أروري وبعض العلماء إجماع صار نقلنا يعني إن لقوا كل سين آيات كمثال كسوا أروري وحكم دين إلهي لي وأحل الله البيع وحرم الربا إلهي بيعه وحكى لك قضى الشضة هي التجارة دواب النية الربا ده السواديدة يعني الربا ده هنا يبيع هين بقى رب التلمامية إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون warkuwa iimaanka laga helay oo Ilaahay leeyahay war alla ka dhowrsada oo ka taga ribada wixii ka hadhay haddii aad tiin kuwa mu'miniina hadda diidaan baa Ilaahay dhina ribada iska daysaan dagaal baan idin iclaamiyo ogaada baa Ilaahay leeyahay dagaal alla iyo rasuulkii iyo idinka idin dhaxeeya saa ogaada macna waxa weeyaan ninkii raba inuu Ilaahay la diriro fadal ribada qaado oo cun ama bixi ninkii raba Ilaahay rasuulkiisa inaanu dagaal la gelinowna ribada iska daaba Ilaahay leeyahay waxa kale oo Ilaahay tilmaamay alladina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas aakhira marka la tagana kuwa ribada cuma isma soo taagan baa Ilaahay leeyahay illa iyo sidii nin waalan oo gabi dhaclaysanayo bay soo taagan takhabbut qof aan istaagi karin balance ku kalunsan yahay إلهي وحلي يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي وبركة تريا وترتريا الربا ده وحي الصدقاء أنا ألا وهجاتشنيا آيات بدنا قرآن قصة أروري إلا علماء ذا يدهدان شن عقابات بقرآن قصة أروري ومد حرب قاطعي ومد تخبط كايهي إلهي سبحانه وتعالى وكنت المامين أنا مرنا بصينا وبنانين ومد محققين وشيء نويهي ومد هدات استحلال ستكفر وياهي ومد خلود في النار ياهي شنطة عقوبات با آيات كسورة البقرة بيكو شرابي علماء التلمامان هدين السنة النبي قولنا مادنا عليه الصلاة والسلام إينا حديثك صاررتي واتربضنتي وحكم إذا حديثك بخاري مسلم بورين أيان النبي قول عليه الصلاة والسلام تضبط وحلاقة كفقادة السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات تضبط لو هلاك سماء وحلاقة كدر كبو النبي يري وما حيبا إلهي رسولك سيو تضبطاسي وحو النبي يقول وقال لي شرك بالله إله الله شريك ياله سحر للسماء يضدك الله قتل نفس دل نفل قويو حق در لغو قويو ربا الله عنه xoolaha goomeedoo la liqo goob dagaal oo jihaad oo laga dhabar jeediyo laga baxsado dumarka muxsanaadka dumarka dhowrsoon ee aan xumaha lagu aqoonay ogeyn ee mu'minka oo xuma lagu tuhmo lagu ceebeeyo qadfi lagu sameeyo intaas ba nabigu wuxuu ku sheegay inay yihiin maxay kuwa lagu halaagsamo toddoba kamida waxa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam habeenada kamida inta la dheelmiyay xadiiska Bukhari sidoo sheegayo ayaan waxaan soo maray buu yiri duul nin biyo ku dhex jira iyo nin biyaha ka baxsan wabi soconayo nin dhex taagay midna ka baxsan yahay oo ka baxsan ka ku dhex jira markuu isla biyaha ka soo baxba ka kala dhagax buu ku tuuraya afka kala dhacaya oo dib buu ugu celinaya markaasaan idhi buu war waa maxay kani dhagaxa lagu tumayo meesha ka bixi kari la waakilu riba buu jibriil ugu jawaabay kani waa kii ribada kuwii cuni jiray weeyaan xadiis kale waxa uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam inuu malcuun yahay lacana rasuulullaahi sala allahu alayhi wa alihi wasallam jaabir ibn cabdillah leh xadiis saxiixa waxaa
nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday oo lacno korkiisa ka yeelay ayo ninka ribada cuna iyo ninka ka wakiilka ah iyo ninka qoraya iyo ka markhaatiga ka ah wuxuba ka cunaya iyo ka aakilu riba wa muukilah ka cunaya iyo ka cunsiinaya yacni ribada nin baa lacagta qaadanayo dadka guraya waa aakilu riba midna waa kan la guro oo siinayo waa muukilu waa kii ribada cunsiinayey kaatibka ka qoraya ee ka shaqaynaya meesha qoraya kuwa markhaatiga ka noqonaya hum sawaabu nebigu yidhi lacnadda intaasi waa ku sibantay intaasiba lacnadda waa ku sibantay waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga soo naqlinayaa xadiid la asixinayo hal dirham oo ribo ahi hal faran oo ribo ahi yacnii inuu la mid yahay ama ka adag yahay 36 geeroo la zinaysto faran iyo zina la isdhinac dhigaya markaase waxaa la leeyahay zinadaa labada fudud waxaa dhib badan baa la leeyahay maxay faranka ribada baa la tilmaamaya xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu hadlay oo khudbadeeyey oo ribada iyo arrinkeeda ka warramay ayuu yidhi ina dirhama yusiibuhu arajulu min alriba halka dirhama nebi qof ka soo gaadha ribada acdamu cinda allahi fi lkhati'ati min 36 zaniya yazniha arajulu ina arba ariba cirdu rajuli lmuslim 36 jeer aad zinaysato ayay ka xuntay buu tilmaamaya ribooyinka kuwa u foosha xun lana waxaa ka mid ah walaalkaa cirdigiisa aad calaaliso idan axaadiistaasi xadiid kalea wuxuu sheegayaa oo saxiix ligayri culammadu ay ku tilmaamayaan alriba 72 baaba ribadu inay 72 albaab 72 baab inay tahay waxa ugu yar baa la yidhi mithlu ityaani rajuli ummah ninkoo hooyadii wax ka daya wa ina arba riba istitaalatu rajuli fii cirdi akhiih axaadiistaa markaynu eegno waxay tilmaamayaan iyo aayaadkii qur-aan ee aynu nidhi 5 shay oo ciqaabay ku sheegayaan iyo axaadiistan marka la isku daro waxay tilmaamayaan dunuubta ugu waaweyn ee la gala inay ka mid tahay kabaa'irta gaalnimada iyo dilka iyo kuwaasay la saf tahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay maa dahara fii qowmin الzinaa wاlriba ilaa axalluu bianfusihim cadaab allah duul daahira muuqata kama noqota buu nebigu yidhi zinada iyo ribadu wax aan la isku inkirin oo caadiya ma noqdaan ilaa iyo kuwaasi alle ciqaabtiisay mutaysteen alle ciqaabtiisa ayaa ku soo degaysa waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamanka saacadda horteed qiyaamaha hortii waxyaabaha caan bixi doona inay 3dani ka mid tahay ribada iyo zinada iyo khamriga cabistiisu inay noqon doonaan maxay muntashir wax faafa inay noqon doonaan war dunuubta kuwa aan la dhaafin iska ilaaliya buu nebigu yidhi ee toobadda xooggan u baahan waxaa ka mid ah alguluul guluulku waa xoolaha muslimiinta ka dhexeeya oo la xado faman galla shay-an ataa bihi yowma alqiyaama ninkii wax xadaa maalinta qiyaama isagoo xambaarsan buu la imanayaa wa aklu riba faman akala riba bucitha yowma alqiyaamati majnuunan yatakhabatu ثuma qara'a aladiina ya'kuluun الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص sidii kii shaydaan derderay ee waa shay miisaanku ka lumay sidiisoo kale u soo kacayaan baa la yidhi qof ribo ma badsada baa nebigu yidhi ilaa iyo cidhibteeda dambe wax la-aan bay noqotaa dee maanta dhaqaalayahanada dunida waxay isku raacsiisan yihiin akbar mashkilaadka caalamka haystaa inuu interestka yahay waxaanay isku rumaysan yihiin waagii hore muddoy qaadan jirtay hadda qaabka loo wado more or less every 10 years mar inuu recession dhaqaalaha dunidu inuu geli doono 2000 maxay 8kii buu galay haddana imikuu galay waa recessionis dumistani waa interestkan tirada badan lee laysa saarayo soo duuduuboo nebigu wuxuu leeyahay ribadu inkastoo la ay badato caaqibadeedu waa wax la-aan bay dhashaa yaraan ayay dhashaa buu nebigu tilmaamaya imaamu nawowi intaasi waa qur-aan iyo xadiidkan idiin soo naqliyo kooban imaamu nawowina wuxuu leeyahay
أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه. مسلمين تو اسكو وافق سنتي الربا إنay xaaraan tahay haba isku khilaafaan masaa'ilka qaarkood kani min riba mise riba maaha ama tacriifka ribadu intuu yahay waa masaa'il khilaafiyo hoose waa ku jiraan ama cumuumka ribadu inay mamnuuc tahay waa la isku waafaqsan yahay taasi waa diinta islaamiga oo diima samaawiga hore miyay ku banaanayd waa maya diinta yahuudda haysatana kuma banaanayn ilaahay baaba qur-aanka inoogaga warramo wuxuu leeyahy waxyaabihii lagu ciqaabayay maxaa ka mid ah wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu baa ilahay yidhi wa akhdihim alriba waqad nuhuu canhu wa aklihim amwaala annaasi bilbaطili waactadna lilkaafiriina minhum cadaaban aliima ribada ay qaadanayeen baa ilahay yidhi iyadoo laga reebay kutubtoodana saasaa ugu qoran fii safri tathniya isxaaxa 23aad saasaa ugu qoran iyo waxyaaba ay ta'wiiliyeen oo sheegaya yuhuud waxay dhahdeen inaga dhexdeennay mamnuuctay inta badan yuhuuddu ribo isma siiyaan ma kala qaataan laakiin bay yidhaahdaan ma cidda kale umamiyiinta ka gur waxaad ka guri karto umamiyiinta maa cala almu'miniina min sabiil weeyaan laa calayna min sabiil kiniisaddu kristanka hadda agtooda miyuu ku bannaanaa maya رجال الكنيسة يا مدحدود يا مجامعدود يا يسوي من جرين وحي سكوا فقصنايين ربادو التحريم قاطع عينيتي ممنوع عينيتي حتى الآباء اليسوعيين عبارات بيسو شيغيان أي شيغيان إن المرابين يفقدون شرفهم فيه كو الربادة عناه شرف كودا ويوايا أهل أماها إن لكنفا بيلي وبدا كريستنا كو الربادة عناه أكلوا ماها إن لكنفا ساد رادد ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانتين هذا بقى لبدا الديمودو قرد حارنتنمدو كما كوبنين بل التاريخ ذا بيليين تاريخي هنا marka dib loogu noqdo dadkii xikmadda iyo aragtida u saaxiibka xataa falsafadii hore qaybo kamid ah Aristo iyo Aflaatoon iyo filosofadii shahiirka ahaa sidoo Aflaatoon مثلا ku qorayo kitaabkiisa al-Qanun la yahillu li shakhsin an yughrida bir-riba bulay qofuma banaana ma aha buu leeyahay in dadka ribo wax lagu amahayo marka hadday falsafadii qadiimka ay tahay iyo hadday saddexdii diimood cirka ka yimid tahay intuba xataa carabtu jaahiliyadii hore nabiga ka horeysay calayhi salaatu wasalaam ribo way isticmaali jireen laakiin haddana inay xuntay way garanayeen cahdigii intaan nabigu nabi noqonin calayhi salaatu wasalaam dhowr jir markuu marayayba kacbada daad qaaday kacbada waxay ku taallaa meel dooxa ah bariya dambeba wuu qaadi jiray imka meel hoose iyo meel biyaa maraan baa loo sameeyey laba buurood dhexdood weeyaan marka roobab xooggani markay da-aan meesha biyo xoogaa mari jiray kacbadii roob baa dumiyey markii roobku dumiyey ayay qurayshi tiri aan dib u dhisno laakiin waxay idhaahdeen shardi kacbada waynu dhisaynaaye waar xoolo ribo laga helay iyo xoolo dad laga dhaco dulmiya xoolayo way yidhaahdeen kuwa iyo inaan ilaahay kacbadiisa marraba ku dhisin yani way garanayaan inay xun tahay walidaalika bay waxay ka ilaaliyeen kacbada inay ribo ku dhisaan sida awgeed bay lacagtii kale xalaasha ay bidayeen ay gaadhi weyday inay kacbadii oo dhan wada dhisaan dabeetana waa kuwan ka tegay intan la yidhaha xijri ismaaciil inta yara qoolaabta yari wareegsan tahay intaas kacbaday ka mid tahay kacbaday ka mid tahay waxay ahayd daartu cahdigii nebi ibraahim marka lagu qiimeynaya in xaggan hore lasoo mariyo oo intaasoo dhamme ay gudaa gasho laakiin markii ay kharash waayeen ayay dhahdeen daarta aan yarayno waa la yareeyey inta kalena aan calaamadino un markaa waa la calaamadiyey inta tan oo daartii in ka yar intii ay ahayd cahdigii nebi ibraahim ayaa la dhisay idan jaahiliyadaa carbeed iyagoo ribadoodu inta badan tan daynta ahayd qof baad dayn ama ahaynaysaa waqtigii markay gaadhow iska bixin kari waayo miyaad bixin baad leedahay mise ribaad ku daraysaa ribaan ku daraya hadduu yidhaha muddo kalaad siinaysaa waa dhaqankoodii ee siduu ahaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa oo haddii falaasafadii hore la yaqaanay diintii yuhuudeed tii kiristanka tii muslimka wixiiba hadday xaaraan ku tahay baashuna maanta aan dunida ribo mooyaane wax kalaba ay adag tahay in la hayo xaggee wax iska weydaarteen diimihii xaggee laga soo dhaafay falasifyada xaggee laga soo dhaafay xaggee wax ka soo baxeen goormay noqotay interest iyo ribadu wax dhaqaalaha dunida u fiican
yurub kristanka maadaama ay xaaraan ka ahayd yuhuudda dadka kale way isku dayeen inay siiyaan iyagana laakiin wadcigoodii ijtimaaciga ha muu saamaxaynin markaa way adkayd qarnigii 16aad markay ahayd oo noocun ma renaissancekiiyo waxaan ay sheegayaan fufka dambe uu soo bilaabmayay ayay yurub inay diimaha ku yara madax adeegto soo bilowday 1593kii markay ahayd ayay waxay yidhaahdeen dadyowga jilicsan ee aan xoogsan karin ee iyagu shaqo geli karin hantidooda ribaha loogu badiyo biidnin min alqaadi maxkamaddu markay xukunto agoonta yaryar iyo dadka caynkan ee aan lacagtooda ku shaqaysan karin si aanay lacagtooda uga dhammaanin ribaha lagu bixiyo dad ha la yidhahdo interest baa bixinaysaan laakiin ha ogolaada maxay qaadiga maxkamadda jooga waa markii koowaad ay soo banneeyaan inay ribo bixiyaan kadib nimankii madaxda ahaa iyo boqorradii iyo dadkii xoogga waaweynaa iyana way iska bilowdeen inay wax ribo ku qaataan oo maalan luwiskii 14 baan leeyahay 1692 dayn ribowiya buu qaatay xataa baabihii 9aad 1860gii boobka laftiisu waa qaatay bay yidhaahdeen dayn ribo ah laakiin waa qoladii waaweynayd una weli bulshada iyo mujtamaca waa ka xaaraan goormuu haddaa qaanuun noqday thawra alfaransiya markay dhacday thawra alfaransiya waa wada maqasheen soo maaha thawraddii waddanka faransiis ka dhacday boqortooyooyinkii baabiisay boqorkii u dambeeyey iyo wadaadkii kiniisadda xiidmihiisay ku baktiyeen midbaa inta xiidmihiisi lasoo saaraa kii kale looga dhigay maxay boqorka u dambeeya bay yidhahdeen waa inaynu ku baktiinaa xiidmaha wadaadka waayo wadaadada kristanka ee meesha joogay dowladda dulmigeed ay taageersanaayeen dabeetana dadku markuu thawradda sameeyey wadaadkii iyo dowladdiiba waa la isku daray oo waa la laayo waa laga wada takhallusay sidaasi awgeed ayaa aljimciya alcumuumiya fi faransa ayaa 12 Oktoobar 1797 qaanuun soo saartay leh ribadu waa banaantay waa awal qaanuun yurub ka soo baxa oo ribo banneeya markaas baa la soo saaray oo lagu baneeyey ribadu dhaqaale ahaan waxba ma kordhiso dhaqaalaha dunida hoos bay u dhigtaa walidaalik tusaale fudud baan idin siinayaa marka recession duwalku galaan dhaqaale burbur u yimaado ee dhaqaaluhu dhulku galo waxa koowaad dawladdu samayso ma taqaaneen interest-ka hoos loo dhigaa si dhaqaale burburka looga soo kaco maalan markuu maraykanku dhaqaaluhu burburay ee shirikaadkii kaceen ee wixii kaceen interest-ka 0.5 baa la gaadhsiiyey Japan 0 baa la gaadhsiiyey 0 interest dhaqaalayahanadu waxay leeyihiin 0 interest markuu yahay ayaa dunida dhaqaaluhu ugu kacdoon badan yahay oo uu dhaqaalaha dunidu sameynaya maxay horumar saa daraaddeed duwalku markay recessionku ku dhaco dhaqaale xumadu markay wadannada ku dhacdo ribada hoos loo dhigaa waxay dhahdeen ribadu hadday 0 tagtana waa dhaqaaluhu halkuu ugu fiican yahay hadda maxaa 0 looga dhigi waayo wadannada horumareene dee ribada inta xoog galaa qaadatee may ogola inta xoog gale shirkaadka waaweyn iyo inta xoog gale iyo bangiyada inta dhaqaalaha haysata ayaa dee dadka dhiig miirata waayo muraabigu waxay dhahdeen ninka ribada qaadanaya waa shaqo aan loo dhididin oo xoolo keenta bay yidhahdeen alaslu lacagtu lacag ma dhasho alaslu fi liqtisaad lacagtu lacag ma dhasho lacagtu waa waxa lagu qiimeeyo juhdiga qofka bini aadamkii bixiyey laakiin shaqaa wax dhasha asalku waxa weeyaan shaqaa wax dhasha muraabigu wuxuu rabaa inuu fadhiisto oo lacag qaato wixii khasaare ana inuu dadku ku dhaco muraabigu ma khasaaro isagu waayo isagu lacag buu ku amaahiyey lacagta lagu amaahiyey kuma xidhna mashruucaaga inaad ka faa'iideeyo inaad ka khasaartay ilaahumay kaa wada dunto isagu lacagtiisii buu leeyahay interestkii marka waxay dhahdaan asalkani waxa weeyaan ninka wax haystaa ma khasaaro waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatadu ha qabto interestku caynkaa macnihiisu waddanka wixii khasaare ka dhaca xoogsatad iyo dadkan dhididaya
iyagu ha ku jiraan inay ama khasaaraan ama faa'iidaan ama ninka wax haystaa ee muraabiga isagoo lacagta bixinaya isagu waxa weeyaan forever interestkiisu leeyahay adigu ama khasaar ama warshadaadu ha kacdo ama shaqadaad ku abuuratay ha baaba'do ama waxay doonto ha noqoto isagu waxa weeyaan waa laabud inuu faa'iido isagu waa masuun markaa waxa laga ilaaliyo waxa khasaara la yidhaahdo waxay yidhahdaan maadaama aanu jirin dadka lacag ay guranayaan aanu jirinna dhaqaalaha waddankana burbur baa ku dhacaya bay leeyihin waayo markay ribadu kor u kacdo waxaa yaraada dadka shaqada samaynaya maalgelintaa yaraata dabeetana ashyaada qiimahooda kor u kacaan idan markaa baabkan la eego oo dhan isku soo duuduub logiska waxba isku badin mayno waayo wakhtigaa aada u yar si aan u sharaxno laakiin waxaynu sheegaynaa ribadu dhaqaalaha faa'iido umale bay yidhaahdaan marka la eega bay leeyihin bulshada iyo isku xidhnaanteeda iyo akhlaaqiyaadkeedana way dumisaa waayo dadka badh bay ka dhigtaa anaaniyiin iyo al-athara wal-anaaniya hunguri dheeraado iyagu xuun qaadanaya miskiinkanna dee culayska haysata la yidhi waxbaa lagu daymiyey miskiinkan dhigiisa la cabaya ee habeen iyo maalinba dhididaya ee wixii uu bixiyey iminka dowladahan yaryari waay afrika ay u kici weyday oo ribaday reer galbeed siiyeen bay u kici weyday waayo afrika waxaa la tilmaamay ribooyinkii la siiyey dhammaanteed intay bixiyeen oo labanlaabkeed bixiyeen ayaa haddana intii la siiyey in ka badan weli lagu leeyahay bal aduu qiyaas waxay lacag amaahdeen oo dhan afrika way celisay way bixisay bale lacag kaloo badan oo dheeraaday bixisay haddana weli waxaa lagu leeyahay maxay wixii la siiyey ka badan baa lagu leeyahay magacay u qurxsadeen waxay yidhaahdeen dowladaha deeqda bixiya ma deeq baa dunida cidisiisiisaa ma jirto deeq waddan la siiyey halku ka odhan lahaa dowladaha dadka dhigmiirta ee ribada ka qaada ayaa lagu odhanaya dowladaha deeqda bixiya deeqi ma jirto waa riba waa intaa 1 bilyan la amaahiyo waddanka 10 sannadood ku bixinaysaa 20 sannadood ku bixinaysaa dan waxa laaliya wixii waddanku shaqaynayo oo dhan waa inuu dib u celiyaa siduu dib ugu celin karayaa waxaa la leeyahay bangiga imanaya si dakhligaaga u bato cashuurta kordhi kan ka samee cashuuraha marka la kordhiya cashuurta yaa bixiya ma tujaartaa bixisaa maya koob shaaho kastoo aad cabto bar bay dowladdu leedahay soo saa ma ogid waxaa laga yaabaa halkan inaad istirahdaan cashuur baa la bixiya soomaaliya ma cashuur baa la bixiya ha cashuur baa la bixiyaa waayo dowladdu markay cashuur qaado ninka taajirka ah bay mar ka wada qaadaysaa ninka taajirka markabka keenaya dabeetana waxaa leeyahay marka waa cinka 1 milyan oo cashuuro shub 1 milyan taajirku yuu xisaabinaya markaa waa kharash buu leeyahay dabeetana jawaankii sonkorta aba $3 baa ku kordhaya $3 ayaa laga qaadaya koobkaad cabtaba badh bay dowladdu cabtay taajirka iyo bangiguna badh bay cabeen shaarkaad iibsataba badh bay leeyihiin idan aakhirka qofka dhiiggiisa la cabaya waa qofka suuqa jooga waa miskiinkan wax iibsadee magaalada jooga weeyaan ninka tujaarta iyo dowladda iyo waxoo dhammi ninkay dhiiggiisa cabayaan waa miskiinka kan sida awgeed bulshada dhexdeeda way baabi'isaa oo xidhiidhkii bulshadu ay lahayd oo dhan baa luma bulshada waxay u qaybisaa ribadu dabaqo aan weligeed khasaarin marka waxay dhahaan lacagtu iyagunbay ku biiraysaa bangiyada iyo insuranska kuwa lacagtu iyaga ku biirtaa qolada ribada qaadata lacagta waddanka oo dhammi marka iyaguna way sii karayaan bulshaduna way sii faqrinaysaa bulsho kastoo dunida joogta way sii faqrinaysaa waayo dowladdu khadamaadka مثلا dowladda joogtaan khadamaadkii ay dadka ahayd in la siyaabay bixin kari waayeysaa biyihii laydhkii khadamaadkii wadooyinkii kan waxa ka waa bixin kari dowladdu maxay samaysaa dowladda lacag bay amaahataa lacagta ayaa laga amaahdaa kuwan ribada laga amaahdaa dowladda waxaa la yidhahdaa lacagta intaasaad ku bixinaysaa lacagtii xaggee laga keenaa adigaagan unbaa lagugu kordhinayaa adunba marqaaga la cabaya markaa dowladda iyo tujaarta iyo kuwa bangiga maraqooda iyo dhididkooda waxay cabaan miskiinkan daalay ninkan uu shaqaynaya 8 subaxnimo inta la kiciyo ilaa 4 galabnimo rooraya kaas baa dhiiggiisa la wada cabaya dadkoo dhami sida awgeed bulshadu laba tabaqay noqotaa tabaqo ru'uus al-amwaal iyagu ma shaqeeyaan way shaqo uma baahna mana khasaaro lacagtiisana meel khasaaraysa geyn maayo bangigaas ay taala bangiguna dadku amaahinaya isagoo iska fadhiya ayuu wixii soo socdaa isagu marka meelahaas uu fasax tagi meelahaas isagu ku maqan yahay wax shaqaana ma hayo bunuugtu marka waxay yiraahdaan waxay qabtaan waa taajirul quruud
bangi horumar iyo bangi tijaarada bangi beeraha iyo bangi waxaasoo dhan waa magacyo lagu bixiyay waxba kama jiraan waxa qudhay jira waa maxay waa nimanka ka baac mushtareeya deynta bank waa sida xeerka u yaala bangigu wax weeyaan inuu deynta taajirka deynta u yahay qaanuun kastoo bangigu yaala waa intaa dawladdu qaanuunka ay u dhigtay ninkan waxa weeyaan wax kale inuu iibiyo looma ogola waxba ma galo wuxuunbuu isagu iibiyaa maxay deymuhu iibiyaa markaa isagu deynta ayuu ka baac mushtareeyaa haddaba fi shariica alislaamiya deyntan dursaar kale ay sheegayaan sharciga islaamiga iyo kii diimee hore iyo kii dhaqaalayanadee hore iyo kii falasafadee hore dhammaantood mamnuuc bu ku yihi ribadu ayan kaanat dhammaanteed waa mamnuuc fi shariica alislaamiya maxaa riba la yidhahdaa marka aan tagna haddaba haddaynu isla garannay ribadu sharciga islaam wuxuu ka qabo sharciyadii diimihii hore waxay ka qabeen falasafadii hore waxay ka qabto dhaqaalayahanada maanta dunida joogaa siday u arkaan oo ay leeyihiin zero riba unbaa ugu fiican waddanka haddii la rabo dhaqaalihiisu inuu horu maro dulmiga ijtimaaciga ay ku samaynayaan bulshada oo dadna la leeyo sida dameero ay u shaqaynayaan inna iska fadhido khasaaroo dhabe uu ku dhacaya un intan xoogsanaysa shaqaynaysa kaasi waa inaanu diin ahaan iyo dhaqaale ahaan midnaba faa'iido lahayn ribo waxaa timi markaa noociyaadka ribada ama qaybaha ribada culammadu inta badan ribada labay u qaybiyaan mid waxay dhahaan riba albuyuuc ribada baaca mushtarka midna waxa la dhahaan riba alquruud ribada deynta gasha si kale haddaynu u tilmaamno mid waxay dhahaan riba nasii'a ribada nasii'ada annasii'a iyo ta'jiila wa ta'khiir ribada dib u dhigista oo waa maxay waa hanti in lagu amaahiyo waktina lagu qabto ziyaadana lagu saaro uun ziyaada lagu saaro 3% baad bixinaysaa 4% 5% 6% waxay doontaa ha noqoto waa lacag lagu siinayo oo maxay ziyaada aad ku bixinayso ziyaadadaasi waa maxay muqaabilkeedu ilan tijaaro kuma adgelini tijaaro kumay siin tijaaro maaha wax kane ziyaadadan maxaa muqaabil u ah waxba muqaabil u ah zamanka lagu siiyey ribada nooca kale waxaa la yidhaha riba alfadl riba alfadl alfadlu yani ضد النقص waa ribada dheeraadka waxa weeyaan laba jinsi oo isku nooc ah sharcigu ma ogola inay kala bataan xagga wasniga iyo keylka kii lagu iibsanayaba waa ribada tani waxay yidhahdaan waa min baabi dhariica baa loo mamnuucay sadi dhariica si aan ta kale loogu gudbin maalan dahab haddaad ku iibinayso waa inuu miisaan isleeg uu yahay yaddan biyadinna uu yahay haddana la kala qaato dahabku amaah ma galo kaygu waa 23 kaaguna waa 21 ma leh waa miisaankunbaa la saarayaa haddaanad ku qaadanaynin xor baad u tahay suuqa ka iibso lacag siiso lacagtaada hadhow waxaad doonaysa ku iibso ama 24 ku iibso ama 20 aday kuu taalla waxaad ku iibsanayso laakiin haddaad dahab ku iibinayso waa inuu noqdaa maxay miisaan isleeg sidaa awgeed 6 shay culammadu waa isku wada waafaqsayin inuu yahay riba marka riba alfadliga la joogo ribada kalena iyana waa la isku waafaqsanyay haddaba markaynu soo duuduubno fuqahada badh ayaa sheega shaaficiyada oo kale riba lyad oo labada shay ribowiga inuu mid dib uu dhigmo waa riba iyana laba dahab oo isleeg baabaynu siisanaynaa laakiin isku iibsanaynaa laakiin mid baa dib loo dhigay qabd alciwadayn taakhiiru qabd alciwadayn waxadihima ma banaana isku soo duuduubo labadaasunba isugu soo noqonayaan riba alfadliga waxaynu nidhi sababta loo taxriimiyey waa sadan lidariica waa inaan riba nasii'a aw riba alquruud inaanay ku gaadhsiin baa loo mamnuucay markaan soo duuduubno oo haddaa maxaa xal ah nin baa lacag haystaa kuma shaqaysan karo ama shaqo ma garanayo haddii aanu bandhiga dhiganin oo bahasha guranin sidee baa xal loo helaya shareecada islaamiga waxay ogoshahay maalka iyo juhdiga in la isku daro dabeetana waxaa ka soo baxa la wada yeesho ka soo qaad waxaan warshad baan samaynayaa bangigaan tegay hadduu bangi islaamiyayey warshadaan u sheegay waxay ka shaqaynaysa iyo suuqaan u hayay waa kan iyo wixii baanu ku heshiinay
bankigu lacagtuu bixinaya oo wuxuu gelinayaa warshadda inaan helo waxaanu ku heshiinaynaa waxa weeyaan markaa nidaam mudaarabadu waa maxay wixii ka soo baxa ee dheefa inaan wadaagno waxa laga yaabaa bankigan in isaan uga faa'iido badanta مثلا wixii soo baxa 30% baad leedahay ana 70% baan leeyahay ama cagsiga 50-50 leeni 40-50 leen sayn doonaan uga heshiino wixii ka soo baxa oo hadday waxba soo bixi waayaanna dee ana juhdigayga waan khasaaraya isna wixii khasaare gaadhay maalkaa buu khasaaraya yani مثلا warshadii baan dhisnay waa shaqaynay wixii khasaara yimi 10% khasaara baa soo galay 10% ka ninka maalka qabaya aniguna intaan ka shaqaynay mushahar layma ogola mushaharkaygu waxa weeyaan wixii ka soo baxa un baan wax ku leeyahay aniguna xoogaygii iyo juhdigaygii ayaan khasaaraya idan labada qof ama way wada khasaarayaan ama way wada faa'iidayaan laakiin in la yidhaahdo miskiinkuna mar kasta khasaara ha qabo taajirku ama ninkan maalqabeenkina mar kasta faa'iido isagu ha qaato sawaan adigu ama khasaar ama faa'iide taa sharcigu ma ogola taasee ribadiya laakiin hadduu ogol yahay labadaba markaa waa mudaaraba waxbaanu wada leenahay waana suurtagal markaa sida tan inay uga faa'iido badato waxaa kaloo sharcigu baneeyey beyci salamku waa in maalka la horaysiiyo shaygina uu dib u dhaco maalan lacag baan u baahnay beertaydii inaan falo waxaan u baahnay lacagna ma haysto imaa inuu mudaarabo ila galo dee aanu wada shaqaysano amase inuu muqadam wax iiga iibsado oo waa maxay wuxuu leeyahay lacagtaan ku sii siinaya laakiin hadhow dee lacag soo celin maysid waxaan kaa rabaa 40 kintaal oo galleeya markaad galleeydu ku soo go'do 40 kan isagu muxuu ku falayaa wuxuu ku falayaa qiimahaad wax ka dhimaysaa ilaan lacagtu ku sii amaahiyay si uu isagu hadhow isagu suuqiisa wuxuu doonaa ka siisto mesela hadduu qiimo ahaan lahaa suuqa markaan joogo 40 in la iga siisanayo isagu lacag muqadam uu 830 oo kale iga siisanaya marka ana lacagtaan u baahnay isna raashinka inuu hadhow ka baac mushtaraysi u baahan yahay ka waa loo galay waxbaanu kala iibsanay lacag baan ka qaatay sicir baanu ku heshiinay isna hadhow waxaan siinayaa maxay raashinkii soo baxay baan siinayaa kaasina waa qaab kale waxa kaloo loo ogol yahay beyc mu'ajala oo thamanka la kordhiyo mobileka kan wuxuu suuqa ka joogaa $500 waxaan ku yidhi 500 ma haysto aniga 600 dayna iga sii okay way iga sii markana waxbaanu kala iibsan laakiin qiimihii suuqa uu qiimo ka yara sareeya ayuu igaga iibiyay maadaama aan maxay daynahan ku qaadanayo iyana taasina waa bannaan tahay waxa kaloo bannaan oo sharciyadu bannaysay alqard alxasan dadka in afraad iyo mujtamac iyo xukuumadba in wax lama ahin karo oo nabigu wuxuu ku tilmaamaya dirhamka labada dirham ee deynta ahi dirham sadaqa bay u dhigmaan yani inaad anoo baahan $1,000 deymiso waxay u dhigantaa 500 oo siisma xagga ajarka marka laga eego waayo baahidaydina waan qabsaday adigana lacagtaadii waan kuu soo celinayaa marka kan waxaad faa'iidaysaa waa ajar ma faa'iidaysid maxay iyo de xidhiidhka walaalnimo iyo bulshadan aad waxud qabatay baad faa'iidaysaa laakiin hantidaadu waa tii uun xalka kale shareecada islaamiga banaysay waxa weeyaan dee waa sadaqaadkii waa deyntii waa zakadii maalan zakada qofku hadduu faqri ku dhaco aan waxba haysanin waxaa la yidhi zaka la siinaya hadduu daymoobo deynta uu iska bixin kari waayo walghaarimiin zaka u bannaan in la siiyo hadduu ibnu sabiil yahay oo jidku ku go'o zaka u bannaan in la siiyo lacag kaloo muslimiinta laga ururiyo badan baa jirto bangiga ku jirta oo ah qofka muslimka haddii mushkiladan ay haysato in xalkeeda loo helo oo bulshadu ay xaggan xalka ka hesho sida awgeed culimada muslimiintii waxay leeyihiin caqdi kasta caqdigu waa contract kastoo uu gashid oo riba ah waa mafsuukh sidiisuu u buray qofka hantida lana waa in hantidiisii uun la siiyaa oo loo celiyaa caqdiguna wuu bursan yahay hadda hantidii celi mana jirto wixii ku saarta nabigu calayhi salaatu wasalaam xajat alwadaac intuu istaagay buu yidhi riba aljaahiliya mawduuc ribadii waqtigii jaahiliyada kala qaadateen oo dhami waa waxba kama jiraan wa awalu riba adacahu ribana ribada ugu horreysay aan duminaya waa taayadii buu leeyahay waa adeerkii ribadiisii
عباس بن عبد المطلب كو باع مشترين جري إنه سيدا بنقياد الربا قاطو فإنه موضوع كله وح الله لي وح عباس العقل قال مقنع وحي الربا صار ريد وحبك ما جيران انتي سونو سو عليا ابن ابوير عباس وحي العقل ربا كو بخيي هذا لا قبل ابو وحبك ما جيران وحن بوليي maxay lafihiisi intiisi una loo soo celiyo من باع بيعا أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل ويفسخ البيع ما كان قائما ابن الرشد باو حليه نكي بيع وحكو بيعيي آن حلاشنين الربا ده يدا هداد حلاشته دوات قالوا بيس آن حلاشنين عقوبة كلول وإن العقابة بوليه هدي آن لوغو عذر دارين جاهل نمو بيعاسنا وبرية محان الربا قلم محان سي الربا قلين في الشريعة لح شيء نبي قوحوا للربا قلان ذهب لقو يبيو يا فضة لقو يبيو ذهب لقو يبيو وهاء بهاء يا مقدار سلاق يا عين كان هذا الله كلاقات فضة لقو يبيو أنا والله ذهب كيف فضة عهدي قا waxay joogeen halkan iminka doolaradan iyo waxaan la sameeynayo doolarkan iyo waxaan waa tuuga cusub oo dadka lagu xado lacagaha dawladdu samayso al-asl waxay ahayd bini aadamku waxa wax ku kala gadan jiray dahab caadi ah dagaalkii labaad ee dunida markii laga baxay ayay dawladihii xoog badnaayay isu tagay shir galeen ay leeyeen aan ka dhigno doolarka Mareykanka international wax lagu kala gato bishart inuu Mareykankuna aqbalo 35 waqiyadood halka doolar inuu noqdo oo bangiga taalo oo qofku hadduu doolar soo xareeyo inuu helayo maxay 35 ounce 35 waqiyadood inuu helayo Mareykankana uu saxeexay iyana way aqbaleen tiiba la waday dunidu doolarka markaas wax ku kala iibsatay muddo markii la joogay ee dhowr iyo 60kii marayso ayuun baa la arkay Mareykanka iyo dagaalana ku jira horumarna sameeyo dhaqaalihiisu siba war xagee wax iska weydaarteen baa la yiri baalkii ma qaar falsafa soo duuduubtay doolarka suuqa jooga uu ka badan yahay daabka haysatay dib baa loo shiray wuxuu yiri 5 kala ku dara 40 baa laga dhigay inuu gooyo bal waaya 40 kaanu kaaga dhignay baa la yiri wax damaha sameeynin waa iska watay 1972 gii maaba madaxweynahoodu hadla wuxuu yiri dahabkii iyo bahalkii waan kala yara fujinay macnaheedu waa maxay waxa loo bedelay waraaqo ay dawladdu iska samaysatay inuu noqdo innaga haddaynu iska samaysana lacagteena Soomaaliya taariikh halkan taala inflation ka markii wada waynu ka caynaa Soomaha ay dawladdu lacag soo daabac markii laakiin kan de inflation ka dunida oo dhan waxa dad jooga la qaba marka dawladda Mareykanka waana iska daabacdaa duniduna way khasaartaa waa ka xog badnayna waa ku socotaa saladu waa intaa ma ha doolarku inuu dadka wax dheeriyay markaynu soo duubno dhowr shay oo waxa la cunaa burka البر بالبر بالنبي يقول بركو اما وبالكن لا يدهدو قمحه maxaynu dhaana sareen lagu iibiyo ama shaciir lagu iibiyo waa heedo kale wax u eg ama timirta timir lagu iibiyo ama milix lagu iibiyo kuwa nabigu wuxuu yiri waa mathalan bimathal in islaagun baa la isku iibin karaa sawaa'in bisawaa'in in isku jaango an yadan biyadin oo marka la kala qaato haddii se asnaaftaasi ay iskhilaafsan tahay sidaa doontaan baa u iibin kartaan hadday yadan biyadanta soo duuduub dahabka iyo fidada kow in halkaa lagu kala qaato mooyaane si kale la isugu iibin karo mar labaad dahab haddii lagu iibinayo waa inuu miisaanka iyo wax walba iska leekaada dahab iyo fida haddii la isku iibinayo waa laba nooc waa kala badan karaan laakiin waa in hadda la kala qaataa bur iyo bur haddaad isku iibinayso waa inay isku miisaanna noqdaan haddana la kala qaataa shaciir iyo shaciir isku miisaan haddana la kala qaataa haddii labada daraf la isku iibinayo dahab iyo cunada haddii la isku iibinayo marka waana kala badan karaan dibna waa kala dhici karaan waa tijaarada caadiga aynu tijaarayno aad marna bariis iibsato marna hadhuudh iibsato aad lacagta bixinayso haddana waa la kala qaadan karaa waana la kala daynsan karaa waqti dambe laakiin kuwa kani ma aqbalaan المماثلة والتقابض والحلول بشرطية إنه يسلاقين هذا لك لقاطي وقتيا هذا اللي تشوفه وقتي وحن رجينا إنه سكر ماضي استثناءات يربي علماء الشيغان وحبا استثناءات كهذا وصي بحمينه وحن كسو ضوضو بينها ربادو ديمه سمد كيمي وقوم ممنوع
yahuud kiristan iyo islaamnimoba dhaqaalayahanada iyo falasifadana waxay tilmaamayaan inay tahay dhiig miirasho bulshada qayb ka mid ay rabto inay dadka dhiig miirato waan manfac ku jirin ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa war hooy ribo ka cunaya iyo ka qaadanaya wixii noo dhammo isku daro haddaad ribada dayn weydaan dagaal alle iyo rasuulkiisa u soo diyaargarooba sharciga qur-aanka kuma soo aroorin wax kaloo la leeyahay ilaahay baa kula dagaalamaya oo aan ahayn maxay aan ribo ahayn waxaa la yidhi zinada oo aad weliba hooyadaa ka zinaysata way ka dembi weyntay waxaa la tilmaamay 36 zino aad gashay inay ka weyntay waxaa la tilmaamay 7 lagu halaagsamay inay ka mid tahay waxaa la sheegayaa oo dhammi qur-aan iyo xadiidba inay mamnuuc tahay dhaqaal ahaana inaanay bannaanayn dadku markay dhulkan yimaadeen way fudaydsadeen maadaama la arkay wax walba oo ribo iskaga socda oo mar haddii aad shaqo heshana dee bangiyadu ay aaminayaan inay waxoogaa ku siiyaan ama ribo dadku iska fudaydsaday kaanama aanay dembi ahayn war waddo gaal ha qaadina war iyaga laftooda og in lays dhiig miiranayo any professor bal economicska u tago weydii iyaga laftooda og in lays dhiig miiranayo marka aniguna inta la adoonsadaa baan ku biiraya waay inta badan ay isu dilaan markay shaqo waayaan waayo jaamacaddii ribu ku soo dhigtay guri ribaana wuu qaatay gaadhi ribaana wuu qaatay shaqada hadduu waayo deyntiiba waa laga xaraashaya markaa waa inuu isdilaa wuxuu noolaada garan maayo ribadu ma ka dhammaanaysaa maya interestku siduu u socdo benshankaad ku galaysaa sideed lagugu wade lagu dhiigmeeranayo intaad bixisay boqolaabkeedna waad bixinaysaa welina sidii baa lagu leeyahy qofkaan ribo bixini waa xor alxuriya alkaamila markaasaad haysataa maanta aad shaqo hesho waad shaqaysan haddaad shaqo weydo waad iska dayn ciidina wax kaa xaraashi mayso ciidina wax kuguma leh haddaad doonto waad iska dhoofi haddaad doonto waad iskaga tegi waxaagee adigaa leh war ribadu adduunkana waa dullinimo ku noolow dhaqaalahaana waa burbur aakhirana waa ciqaab dunida lafteedana ilaahay wuxuu ku yidhi yamxaqu llaahu riba waa baraka tiraya aad ku gubanuun ribaad guri ku qaadan adoo moodaya inaad isla carruurtii baan wadi kari weyn carruurtun baa lagugu itixaamay carruurtii iyo islaantii aad unbaa madaxa isla geliyo berritun baydan kala yaaci doontaan waayo ilaahay baa dagaal kula jirtaa ilaahay si uu kuula dagaalamo garan waayi maayo waayina maayo idan adu waxaad lahayd carruurtii iyo islaantaan u danaynaya oo guriga u qaaday ribada carruurtii iyo islaantuna iyagaba ku eryi doona marka lagugu itixaamo idan war riba ha isku gelina haddaad rabtaan ilaahay inay heshiis la ahaataan oo cibaadada la idinka aqbalo oo adduunkiina aydan khasaarin aakhiradiinana aydan khasaarin riba ha gelina wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin